بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسي لبعض ودروستي أن أتلقى رمضانك إن قلب والباء كم إذا رمضان أن كوكل فايدي سنو مسجد حاج علي waxaan soo gaadhnay xadiiska shanaad ee jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma qaala ataa annabiya sala allahu calayhi wasalama rajulun nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam faqaala wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow malmuujibataan labada wax waajibiye maxay yihiin labada arrimood ee midina ay janno waajibiso midina ay naar waajibiso maxay yihiin faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam midda koowaad man maata qofkii dhinta laa yushriku isagoon la wadaajinayn billaahi ilaahay shay-an waxba aan la wadaajinayn janna u waajibtay dakhala aljanna jannada ayuu gelaya marka in towxiidka la saxo waxay waajibinaysaa janno midda labaad ee wax waajibinaysa waa man maata qofkii dhinta yushrigu isagoo shariig yeelaya billaahi ilaahay shariig yeelaya shay-an wuxuun u shariig yeelaya iyaduna naar bay waajibinaysaayoo dakhala annaara naarta ayuu gelaya imaamu muslim ayaa wariyey waana xadiiska 93 ee saxiixu muslimka xadiiskan nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku tilmaamayaa qof kasta oo muslim ah oo mu'min ah oo isagoo shirki aan ku jirin dhinta inuu kollayba jannada gelayo waxaa lagu fasiraa iyadoo axaadiista kale iyo qur-aanka kale loo geynayo qofka ahlu tawxiidka ah dunuubta ka dhacda ama adduunkaa looga jarayaa ama aakhira looga jaraya laakiin kollayba hadduu shirki la'aan la dhinto oo isagoon shirki wax ka mida wadanin uu dhinto wakhti ay noqotaba kollay waa kii jannada ku dambeeya laakiin way dhici kartaa in dembigiisa abaalkiisa uu noqdo inuu naarta soo maro walciyaadu billaah oo xadiis badan baa tilmaamaysa qayb ka midna waa inoo iman doontaa duruustan dhexdeeda qofkii muslimka ahaa oo dembi uu mutaystay naarta ku galay dembi uu galay naarta ku mutaystay laakiin laga soo saaray maadaama ahlu tawxiid uu yahay qaybta labaadna waxay tilmaamaysaa qofka mar haddii uu shirki la socdo camalkiisa si kastuu u badan yahay inuusan naar ka badbaadinayn marka shirkigu wax sahlan ma aha wax la yaraysto oo lagu doodo oo la dhayalsadona ma aha shirki meeshii shareecada uu ka soo galo uu baabi'inaya laakiin maxaa lagu garanayaa inuu waxaani shirki yahay in kale waa in culimmada laga barto dadka culimmada ah ee aqoonta leh cilmiga ugu horeeya ee qofku uu weydiiye waa inuu noqdo maxaa shirki ah maxaanse shirki ahayn xadiiska waxaa warinayay jaabir ibni cabdillaahi ibni camr ibni alxaraam alansaari waa reer ansaareed assalami bani salima weeye oo bifatxatayn wuxuu kuu lehay siinta iyo laamtaba in la kordhiga wey waana reer ansaareed ayuu ka mid ahaa saxaabiyun ibnu saxaabiy isaguna waa saxaabi
aabbihiina waa saxaabi oo aabbihii wuxuu ka mid ahaa min shuhadaa'i uxud, saxaabadii 70 gaadhayee uxud lagu dilay ayuu aabbihii ka mid ahaa. ammaantiisa iyo fadaa'ishiisa waxaa ka mid ah غزا 19 غزوة 19 duulaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qaaday. jaabir waa la socday radia allahu tacaala canhu. fadaa'isha saxaabada marka loo sheegayo waxyaabahaan u keennay oo nugu talagalay in looga faa'iidaysta waxaa ka mid ah saxaabada iyo innagu kulligeen waxa aan u muslimnay een diinka u qaadannay waa inaan janno hello. marka aynu ogaanno saxaabadu acmaashii ay qabteen, adigana waxaa kugu dhalanaysa oo haddee ninkaasba jannuu raadinayay adiguna jannaad raadinaysaa, adigu maxaad marka islaamka u qabatay? waana laga fiican yahay qofku inuu adduunka soo galay oo uu muslimay, wixii uu cuni lahaa iyo wixii uu cabbi lahaa iyo wixii u gashan lahaa iyo meeshuu degi lahaa isagoo ka fikiraya waxna aan u dheerayn inuu dhinto waa looga fiican yahay. qofka muslimka ah waxaa loogu talagalay inuu noqdo qof ka fikiraya wax isaga ka baxsan. waxa isaga ka baxsan ee muslimiinta u qabanayaan way badan yihiin, ama xagga cilmiga ama xagga maalka ama xagga maamulka ama xagga awlaadda la tarbiyeeyo, way badan yihiin. laakiin wax uun laga faa'iiday waa inuu jiro noloshiisa, waayo maalin uun maalmaha ka mida baa la odhanayaa hebel waa dhintay. oo hadda wakaas jaabir waxaa la leeyahay 19 duulaan buu nebiga la raacay uu la socday, wamaata bilmadiinati madiinuu ku dhintay bacda 70 hijrada kadib, wa huwa ibnu 94 isagoo 94 jir ah ayuu dhintay. marka waxaad dareemaysaa markuu nebigu soo hijroonayay calayhi salaatu wasalaam jaabir 20 wuu ka weynaa, 20 jir waa ka weynaa. markuu nebigu dhimanayayna dhowr iyo 30 buu jiray radia allahu tacaala canhu. 94 buu ku dhintay. ilaa maalintuu soo muslimay 70 sano oo ka dambaysay iyo weliba sannado dhowr ah oo uga horreeyay, ilaa wuxuu ka mid ahaa dadkii aaday baycatulcaqaba buu ka mid ahaa. dhowr iyo 70 sano oo noloshiisa ka mid ah waxaan diinta islaamka ahayn kama shaqayn. hadduu maal helo, hadduu wakhti helo, iyadaa unbuu ku bixinay. xadiiska 6 ibnu cumar baa warinaya radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah. umirtu waxaa la i faray an uqaatila annaasa dadkii inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay ka marakacaan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu ilaahay mooyeen, wa anna muxamadan muxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay sala allahu calayhi wasalam, wayuqiimu ay oogaan xataa yuqiimu wey ila yuqiimuuna bay ahayd xataadaasaa nuuntii ka tuurta. waxataa yuqiimu ilaa ay ka oogaan asalaata salaada ay ka oogaan, wayu'tu zakaata zakadana ay dhiibaan hadday maal leeyihiin. faidaa facaluu hadday yeelaan maa dukira waxaa la sheegay ee tawxiidka iyo salaada iyo zakada hadday maal leeyihiin oy dhiibaan, intaa hadday sameeyaan dagaalkii waa laga joojinaya. casamuu way iga ilaashadeen oo way iga dhowreen minnii aniga dimaa'ahum dhiiggooda iyo wa amwaalahum maalkooda iyo dhiiggooda wuxuu ku bannaanaan lahaa wixii maxaanku idhaahdaa in lagu bannaysta keenayay waa laga waayey. sidaa darteed maalkoodii iyo dhiiggoodiiba wuxuu noqday wax ilaashan oo aan loo dhowaan karin
oo ilaahay uusan ogolayn in dhiigoodana la daadiyo maalkoodana la qaato. marka qofka hadduu tawxiidsado salaadiina la yimaado dhinaca ay naxariistu ku jirto, haddii awlaad lala dhaqmayo, haddii waalid lala dhaqmayo, haddii qof shirkad kule lala dhaqmayo, haddii qofku xukumo lala dhaqmayo, haddii dadkaad xukuntay aad la dhaqmaysid, meel walba oo la joogo waxaa loogu talagalay shareecadan in naxariis la kala qaato. waxaan xasuustaayoo runtii intaynaan baabkaan ka bixin in la sheego ku fiican hadal laga soo guuriyey nin culimmada muslimka ee hadda nool ka mid ah oo la yidhaahdo asheykh maxamed ilmunajid oo kutub leh, ba waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi nin faransiiska deggan oo muslim ah yaa qiso ii sheegay buu yidhi. faransiiska nin deganaa oo muslimiinta faransiiska degan ka mid ah baa wuxuu yidhi waxaan daris la ahaa qof haweena oo aan muslim ahayn baan daris la ahaa buu yidhi. waxay ahayd qof 90 dhaaftay xagga da'da, cid u gargaarta oo ka warqabta ma jirto. guriga markay degan tahay ay jaranjartiisa fuulayso intaasoo daqiiqay sii soconaysa, markay ka soo degaysana intaasay soo soconaysa. daris baan nahay buu yidhi. maalinkii dambaa waxaan go'aansaday buu yidhi dowladdu dee markay dowladuhu dhisan yihiin oo dowladaha nidaamkooda uu fadhiyana bani aadamka shu'uuntiisa khayr baa ku jira in la farageliyo, ku degdegi maysid. oo wixii dee meesha adigoo khayr samaynaya wixii ka dhasha qayb baad ku yeelanaysa. bilowga hore waxay ka bilaabanaysaa maxaa kuu geeyey qofkan, maxaa dowladda ugu soo sheegi weyday. si kastoy tahayba wuxuu yidhi waxaan go'aansaday inaan kaalmeeyo. markay korayso wakhtigaygii baan wakhti ka siiyey buu yidhi, maadaama aan garanayo saacadaha ay soo degtay iyo saacadaha ay kortay iyo wakhtigaygii baa waxaan ka dhigay wakhti aan ugu khidmeeyo. markay korayso wuxuu yidhi dhinac baan ka galaa, waan kaalmeeyaa. waxaa laga yaabaa inaad isweydiisa muslim buu ahaa ee qofkaan haweenka ee kaafirka muxuu taataabanaya. xaalado waxaa jira wixii aad taqiinay qaybo ka mid ah laga tallaabaya baa jira oo daruura ay keenayso. qof haweenahoo da'oo hadda laamigaa goynaya oo baabuur uu ku soo dhow yahay maxaa samaynaysaa? maxram uma yihi miyaad leedahay? way kala wen yihiin. wuxuu yidhi waxaan ku idhaahdaa gacantaan ku qabtaa, maxaan ku idhaahdaa kaalmeeyaa, meesheedaan geeya. haddaan la kulmay iyadoo soo degaysana waan kaalmeeyaa. maalinkii dambe waxay igu tidhi buu yidhi yaa ii kaa soo diray? ma cid baa ii kaa soo dirtay? oo ma wiilkaygii baa ii kaa soo diray? wiil bay leedahay. ma cid baa ii kaa soo dirtay? markii hore ku bilowday. markaasaa waxaan ku yidhi haa waa la ii kaa soo diray. maalmo baan waday buu yidhi. markii dambe intay adkaysan weyday bay waxay tidhi qofka ii kaa soo diray ii sheeg. markaasaan ku idhi buu yidhi allah baa ii kaa soo diray. oo allah muxuu yahay? waa allahaan caabudayno, idinkuna haddaad qoladaa tihiin aad caabudaan oo hadda ka hor aad sheegan jirteen oo kiniisaddiinnu way taqaanaa. way aamustay wey. maalinkii labaad iyadoo qorraxdu ay sii dhacayso bay waxay ku soo celisay buu yidhi yaa ii kaa soo diray? markaasaan ku celiyey buu yidhi allah baa ii kaa soo diray. oo ilaahay suu iigu kaa soo diray. annaga diinkannaga qofka weyn aan u naxariisanno, qofka weyn aan xurmayno, qofka yarna aan u naxariisanno, qofka tabaalaysanna aan u naxariisanno. diinkannagay ka mid tahay. waxay tihi buu yidhi diinkiinna ma geli karaa? waa geli kartaa haa. waa maqrib buu yidhi. markaa maqrib baa la sii gelaya. haddaan u baahnay bay tii marka inaan galay hadda ila gaadh.
wadamada maxaan ku yiraahdaa reer Yurub iyo meelaha ay gaaladu ku badan yihiinna hay'ad baa loo sameeyay markuu qofku muslimayo waa in meesha la geeyo oo cid qaanuun haysata oo sharci u haysata inay qofkan tawxiidka u qabato oo jaaliyada la aqoonsan yahay kamida waa in markaa loo geeyo xarun baan geeyay bii la aqoonsan yahay markaasa tawxiidkii baa loo qabtay way muslimtay inta aan salaadii cishaha la gaadhin yaa qandha qabatay qandhadii baa ku adkaatay isbitaalka la geeyay way dhimatay 93 bay jirtaa wiil 93 bay jirtay ninkii odayga ahaa oo maamadan kaalmaynay isagu qubuurta buu jeclaanayaa in lagu aaso markaa qubuurtii muslimiinta markii geerideedii la faafiyay wiilkeedii baa yimid wiilkeedii wuxuu yimid iyadoo la leeyahay qubuurta muslimiinta lagu aasaya laguma aasay buu yidhi anigii hooyadeed tahay waa anagay naga dhimatay annaga aasayn haddii kale wuxuu yidhi inaad idinku aasataan waa idinka gadaya lacag baa idinka siinaya lacag baa iga siinaysa imisaan kaagaga iibinaa 5,000 oo euro ayaad ii shubaysaa qof muslima miyaa qabrigiisa laga labalabaynaya saasaa la isu fiiriyey 5,000 ee euro baa daqaa'iq lagu soo ururiyey waa loo shubay halkaasuu kala baxay dadkii iyada hore u yaqiinay meeshaan uga jeedno oo dhan wali way soo socotaa dadkii iyada hore u yaqiinay baan warsaday buu maxay ka shaqeey jirtay baan yidhi markaasaa waxaa la yidhi waxay ahayd mumarrida نرسي بعد كالكالية عافيمات بعد وكانت ترحم المرضى دادك جيران لو كيني جيرينا دادك اوغن حريس بدن اللي يسو الشيغة اياهي سغاشن يصدح اني قفك هنونك اوغيمات لبا ارين با سببي qof naxariistay oo qof soo naxariisan jiray u naxariist marka walaalayaal dhibka indhahaagu ay qabanayaan markaad magaalada maraysid dhibka indhahaagu ay qabanayaan waa dhib haysta dad muslimiin hadda sidaa darteed bini aadan baa tahay kullay wuxuun waad ka qaban kartaa kulligood ma wada qaban kartid لكن وحون واك قبن كرتا كل إرا عندها كلابة مركب معا حديث كسو السعودة عن أبي إدريس الخولاني خولان وبني خولان وقبيل رير يمن ودقا صنعاء يهرير هذا حتى صنعاء وحكوية لشارع الخولان قبيل كاسا صنعاء يهرير هذا دقي جري قبيل كاسو كدش عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى وحديث القدسي أنه قال الله وحيدي يا عبادي الضومضيدي رحمة إلهي تبارك وتعالى حديث كان آذو صفا فاهني يا عبادي الضومضيدي إني أنو حرمت وان حرمي الظلم ظلمي وان حرمي على نفسي نفتيذا وان كحرمي بمعنى نفتيذا ظلمي كما سورتوذ الإله تبارك وتعالى منزه عن الظلم معناها ظلمي إلهي أكتي سميالو وجعلت وحنكي لي بينكم دحذيننا ظلمي وحنكي لي محرما مدحارانا بل هذا الكافيري فلا تظالموا حيث ظلمننا وكو طبعا جاري كبضا بحديث كان كسر الله بنا يا إلهي دواقيس يا عبادي الضومضي ذيو كلكم دمانتين ضال وضبادي سنتهين إلا من قفكي هديتو وان هنوني موين فاستهدوني إيغا هنونين دلبا
أهدكم وإن إذن هنونينيا هنوني ويديستا حتى هداد مسلمين تهين إلهي إنو هنونك كوسوغو إلهي إنو كودلو إلهي إنو خاتمة هذا هنون كدغو با إلهي ويديسانيس يا عبادي أدوم ذيديو كلكم دمانتين جائع وباهنتهين مدرقيال باتهين إلا من قفكي أدعمت وأنقوذي موين فاستطعموني أنيق إيغا قوذين دلبا بني آدم هدي ما لودن لسي مدرقو سيدا درتيد قناعة أي كجرتاين لدرقو قناعة وقلبك حقيدا قلبك إلهي بابا مولا marka waa inaad ilaahay weydiisatid wixii uu ku siiyay inuu kuu qanciyo wixii aad u baahan tahayna uu kuu kordhiyo yaa cibaadi addoomadaydiyow kullukum dhammaantiin caarin waxbaa laga xadfay marka waad qaawantihiin oo waad dhar la'dihiin weyn haddii waad ogtihiin oo qofku isagoo dhar la' buu dhalanaya isagoo arradan buu dhalanaya ilaa man kasawtuu qofkaan anugu marasheeyo oon arrad tira mooyeen fastaksuunii ii arrad dalba inaan idin arrad bixiyo oo iga marasho dalba aksukum waa idin marashaynaya waa idin dhar tiraya waa idin arrad bixinaya yaa cibaadii addoommadaydiyow innakum idinku tukhti'uuna waad gafaysaan billeyli habeenkii iyo wannahaari maalintii habeen iyo maalin oo dhan waad gafaysaan habeenkii iyo maalintiiba waad gafaysaan gaf wuu idinka dhacayaa wa ana aniguna akfiru waan dhaafa addunuuba dunuubta jamiican iyadoo dhan fastakfiruunii iga dhaafi dalba akfir lakum waan idin dhaafayaa yaa cibaadii addoommadaydiyow innakum idinku lan tabluguu ma gaadhaysaan durrii aniga dhibkayga fatadurruunii aad i dhibtaan aniga inaad i dhibtaan ambiyadayda dhibtaan diinkayga dhibtaan shareecadayda aad dhibtaan diintayda aad dhibtaan maya waxba kama qaadi kartaan diinta iyo shareecada iyo khaaliqa iyo ambiyada waxba kama qaadi kartaan walan tabluguu mana gaadhaysaan nafcii aniga nacfigayga inaad aniga anfacdaan ood aniga wax ii tartaan waxba waxaan idinka baanahay ma jiro oo fatanfacuunii markaad i anfacdaan aniga waxba iima tari kartaan waxna ima yeeli kartaan yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awalakum haddii kiina iigu horreeyey wa aakhirakum iyo kiina ugu dambeeyey wa insakum iyo insigiinna wa jinnakum iyo jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin qofka ugu qalbi taqisan waaxidin oo keliya oo minkum idinka idinka mida qofka idinku qalbi wanaagsan oo idinku cabsi badan haddii aad wada noqotaan maa zaada daalika kaas ma siyaadinayo fii mulkigayga shay-an waxba kuma siyaadinayo yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin qofka ugu faajirsan oo idinka mida qalbigiisa oo kale hadday wada noqdaanna oo kulligiin aad ibliis oo kale noqotaan maa naqasa daalika min mulkii shay-an mulkigayga waxba u dhimi mayso idinka unbaa baadiyoobay yaa cibaadii addoommadaydiiow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum qaamuu ay istaagaan fii saciidin waaxidin meel bannaan goob bannaan hadday istaagaan oo iyaga dhan qaada jinka oo dhan insiga oo dhan qaada hadday istaagaan fasa'aluunii ay weydiistaan waxay u baahan yihiin ayaa ku jirta fa actaytu aan siiyo kulla insaanin insaan kasta mas'alatahu mas'aladiisa waxay weydiistay haddaan siiyo hadda fiiri meeshaan markii hore waxaa la yidhi insakum wa jinnakum markii dambena waxaa la yidhi fa actaytu kulla insaanin sababtoo insaankiibaa hadda lala khitaabaya insaankiibaa hadda lala hadlaya maa naqasa daalika mimaa cindii waxa aniga agtayda kama nuqsaaminayo ilaa kamaa sidii mooyeen yanqusu u nuqsaaminayo
almikhyadu irbaddu ay u nuqsaaminayso idaa udkhila albaxra haddii baxarka la geliyo. irbad haddaad soo qaadid ood bad gelisid, baddaa maxay ka soo qaadaysaa? waxba kama soo qaadaysa. weliba culimmadu waxay yidhahaan waa miithaal. xataa irbaddu iyadoo qoyan bay soo baxaysaa. qoyanaanta xataa milkiga ilaahay lagama nuqsaamin karo. milkiga ilaahay ma nuqsaamo, isma dhimo. yaa cibaadii addoommadaydiyo innamaa wax kale maahee hiya arrinku aad qabanaysaan wuxuu yahay acmaalukum acmaashiinnii weeye. waxa yaalla eed kasbateen ee laydinka jeedo ee malaa'igtu idinka qorayso waa camalkiinnii. uxsiihaa waa la koobayaa, lakum idinka waa laydin haynayaa. uma kadibna uwafiikum waan idiin oofinaya iyaaha camalkiinnaasaan idiin oofinaya. waa shaqaynaysaan marka, waxaad qabanaysaan wuu badan yahay. faman wajada qofkii hela khayran khayr, aakhira marka la tago qofkii khayr la kulma, falyaxmad illaaha ilaahay ha ku mahadiyo. waman wajada qofkii hela hayra daalikana falaa yaluumanna yuusan la dagaalin, uusan eedaynin ilaa nafsahu naftiisa mooyn cid kale yuusan eedayn. haddaba waa laydiin digay. qaala saciidun, saciid wuxuu yidhi oo sanadka ka mid ah oo hadda aynaan sheegin. kaana wuxuu ahaa abu idriisin alkhawlaani. abu idriis wuxuu ahaa idaa xadata markuu sheegayo warinayo bihada alxadiidi, xadiiskan markuu warinayo, jatha wuxuu dhigan jiray, uu ku fadhiisan jiray calaa rukbatayhi, labadiisa jilib buu dhulka dhigan jiray. salka dhulka ma dhigi jirin. lugaha faraha ku yaalla fooddoodana wuu taagi jiray. cirbihiisuu ku fadhiisan jiray, jilbahana dhulkuu dhigi jiray. sidaasuu ku warin jiray. sidaa xadiisku u weyn yahay oo u baahan yahay in loo qaato, oo xikmada ay ugu jirto, oo u baahan yahay in loo aqbalo. abu idriis alkhawlaani waxaa lagu magacaabi jiray caa'idullaahi bni cabdillaah. welida waxaa la dhalay fii xayaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam. nebiga oo nool ayuu dhashay. waxaana la sheegaa yowma xunaynin, maalintii xunayn, sanadkii xunayn uu dhacay. dagaalkii xunayn dee wuxuu ahaa fatxu maka kadib, markii maka la furtay oo maka la xasiliyey oo lagu tukaday oo kacbadii waxaa weeye asnaamtii laga qaaday oo maxaanku yidhaahdaa la nadiifiyey oo loo sameeyey cid maamusha, yaa waxaa la aaday qabiil la odhan jiray hawaasin oo maka xoogay ka durugsanaa, laakiin laga warqabay inay shareecada iyo diinta iyo madiina iyo saxaabada ay collana ahaayeen, duulaanna ay ugu soo maqnaayeen. maka markii la soo aadayey 10,000 oo saxaabi bay ahaayeen. kadibna maka waxaa ka raacay 2,000. 12,000 baa lagu aaday marka. waana sanadkii maka la furtay lafteeda way. sanadkaasuu dhashay marka abu idriis alkhawlaani. 3 sano ayuu jiray markuu nebigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam. 3 sano jir. dee qofku markuu 3 sano jirana mukallaf ma aha, xataa mumayiz ma aha. sidaa darteed saxaabada lagu dari maayo. xataa haddii loo geeyo oo nebigu uu qaado miyuu rumaynaya? mukallaf ma aha. maxaanku idhaahdaa caqligiisuna dee waa caqli sabi. sidaa darteed marka saxaabiga la tacriifinaya waxaa la yidhaahdaa saxaabi waxaa weeye qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam la kulmay ee rumeeyey isagoo muslim ah, nebiga la kulmay ee rumeeyey isagoo muslim ana dhintay. sidaa darteed wuxuu nasiib u yeeshay hadalkan soo socda. wa samica wuxuu wax ka maqlay oo cilmiga ka qaatay min kibaari saxaaba, saxaabadii waaweyneed buu cilmiga ka qaatay. 3 sano ayuu nebiga noolaa, isagoo 3 jiruu nebigu dhintay. abubakarna 2 sano ayuu khaliif ahaa, isagoo 5 jira. abu idriis oo 5 jira buu abubakar dhintay.
cumar markuu dhimanayeyna 15 jir buu ahaa oo cumar khilaafada wuxuu hayay 10 sano iyo nus markay isagoo dhowr iyo 10 jira baa cumar dhintay intii saxaabo ahayd ee markaa noolaa in badan oo ka mid ah intuu ka gaadhayay wuu la kulmay wamaata wuxuu dhintay sana 80 hijradu markay 80 ahayd ayuu dhintay وقال سعيد بن عبد العزيز markuu ammaanayay wuxuu ardadiisii buu ka mid yahay ardadii abu idriis buu ka mid yahay saciid markuu ammaanayay wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa caalim ashaami shaam caalimkeedii buu ahaa bacda abidarda markuu geeriyooday kadib caalimkii looga tegay reer shaam abu idriis alkhawlaani buu ahaa ammaan ka weyn maad garanaysa nin la leeyahay saxaabi hebel markuu dhintay qofka bedelay ee cilmiga muslimiinta u sii hayay isagu ah jaa fi tahdhib al-kamal lil-mizzi tahdhib al-kamal ka-mizzi aan soo sharaxnay shalay ee maraajicdana kamid ah duruustan ee hoosna aad ku arkaysid waxa ku yimid kaana abu idriis al-khawlani wuxuu ahaa min culamaa'i ahli sham culimada reer sham buu ahaa wa ubaadihim dadkooda cibaadada badanna wuu ahaa wa quraa'ihim dadkooda quraanka yaqaana ee reer sham quraanka barana ka mid buu ahaa halka maxaa ka garanaysa aniga iyo adiguba marka aan adduunka ka baxayno wuxuu waa inaan ka tagnay koloo xataa la yidhaahdo qofkaas allah u naxariisto walle wax dulmiya oo lagu yaqiinay ma jiro maxaa ka yar wax ka yari ma jiro xataa haddii markaad dhimanayso dadku ay yidhaahdaan walle qofkaa hebela maalin aan iska soo horbaxanay ma jirto ilaa uu dhoolla caddaynaya xataa haddii markhaati lagaaga noqdo nasiib baad leedahay macnaha qofku muslimka markuu dhimanayo wuxuun khayr ah oo uu ka tegay waa inuu jiro laakiin adduunka inaad soo gashay oo aad weynaatay oo maal aad yeelatay awlaad yeelatay caafimaad aad qabtay inta aad wuxuun cunaysay ood wuxuun cabbaysay ood labisanaysay oo wax khayraba aadan ku fikirin abidar isagana maxaa la odhan jiray abu dharin al-ghifaari as-saxaabiyu al-mashhuur nin maxaan ku yidhaha soomaali waxay dhihi jirtay magac miskiin lagama aha abu dharri qofkaan aqoon saxaabo ma yaqaano dee saxaabadan waxaa lagu aqoonsanayaa qofku meesha saxaabada lagu sharxay inuu in laga helo meel uun ka mid ah inuu xidhiir la leeyahay waa in laga helo abu dharri waa macruuf weeye qisadiisa ha la sharxa haddii la yidhaahdo waxay u baahan tahay hal maalin in la siiyo dee waa saxaabigii intuu ka yimid dhulkoodii reer khifaar kacbada imanayay isagoo raadinaya khabarka nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadiisa hal maalin bay u baahantay ismuhu jundub ibn junaada cala al-asax sida saxiixa ah magacaasaa la doortay wakhtulifa fi ismi abiihi magaca aabihiina culimmada dhexdooda hadal baa ku jira taqadama islaamkiisu wuu soo hormaray wadayada maka la jooga buu nabiga intuu u yimid calayhi salaatu wasalaam horta marka hore nin ay qaraabo yihiin ama walaalkiisa ayuu ku yidhi war nin intaa maka tagtid soo fiiri bal ninkaan la sheegaya soo baxay waxa ka jira ninkii baa maka yimid wuu arkay nebiguu arkay calayhi salaatu wasalaam quraysh inaysan u turaynin buu arkay ninkii wuu laabtay abu dharri buu u tagay wuxuu ku yidhi war maxaad soo aragtay nin sifadaa iyo sifadaa le baan soo arkay buu yidhi wax badan maada ii sheegin buu yidhi ushiisii buu soo qaatay uu soo maxaan ku yidhaahdaa soo dhaqaaqay ma ku yimid makana markaa waxay maraysaa meel qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ag fadhiista intii la qabto waxaan bini aadam xamili karin lagu samaynay wuuna ka warqabaa waxay sameeyeen kacbaduu yimid nin caqli badan buu ahaa kacbaduu yimid wuu iska degay tol buu ka dhashay oo reer khifaar buu ka dhashay oo mararka qaarkood reer maka sahaydaa u soo marta bani khifaar
isaga waa la og yahay meeshuu ka yimid kacbadu iska degay wax la hadlayaa ma jiro maalinkii dambe cali ibn abi taalib oo wiil yar ah yaa dareemay ninkaan inuu martiye lama hadli karo laakiin si mubaashara intuu u soo hor fadhiisto lama sheekaysan karo intuu dhinaca ka fadhiistay oo dhinacu u sii jeeday isaguna isaga sii jeestay buu hoosta wuxuu ka yidhi hadal uun dhagihiisa ku dhacaya ninkaani dadkii u socday weli ma helin miya hoos baa loo odhanaya abudarrina nin caqli badan buu ahaa wuu fahmay markaasuu hoos wuxuu ka yidhi nin noocaasaan u socdayoo dadku ay ku sheegayaan waxa iyo waxa markaasuu yidhi ninkii aad u socotay cidku tuusta waad heshaye iska fadhi buu ku yidhi cabbaar baa la fadhiyey waa la sii kala jeestay waxaa la iska dhigay waxaan waxba sheegin kadib baa wuxuu ku yidhi hoos buu ugu sheego wuxuu ku yidhi waan kacayaaye isoo dabagal nin daba socdana ha iska dhigin islaamkan aad arkaysaan meeshaasaa laga soo saaray marka aan dareemo buu yidhi in wax halisa ay naga soo horbaxeen oo dee quraysh waxaa ku jira rag ka shaqeeya uun inay dadka saxaabada ah iyo ragga nebiga calayhi salaatu wasalaam ku xidhan inay indhaidhneeyaan oo xaaladahooda ay qiimeeyaan ma qof baa la socda mise maya markaan halis dareemin waan iska fadhiisanayaa iska kay gudub sidii baa la yeelay suu u socday buu marka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu geeyey wuu la hadlay maxaad u socotay baa lagu yidhi waxaa la sheegayay sheeg buu ku yidhi islaamnimadii baa loo bandhigay maba ka labalabayn wuu rumeeyey nebigu waa la taliyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maanta meesha aan joogno meelaad noo kaalmayn karta maaha iska tag tolkaa u tag markaad maqasho waa guulaysteen noo imow ma jirta wiil waa meelaha laga qaato qof walba meesha uu degan yahay meesha uu isagu kaga jira waa inuu isqiimeeyo waxa isaga laga filayana waa inuu qabto isagu waa inuu isqiimeeyo in wax qaba la yidhaahdo maaha waa inuu isagu iska warqabo waxa uu qiimayn karo ee ummaddu ay ka filayso wuu la taliya wuxuu ku yidhi abudarri oo ka joog maya buu yidhi kacbadaan tegaya tawxiidkaan ku dhawaaqaya tawxiidkaanna waa midka abubakar iyo raggii magaalada joogi jiray lagu haysto kacbadii buu istaagay abujahal iyo raggaad og tahay baa fadhiya tawxiidkii buu ku dhawaaqay intay saa u fiiriyeen bay waxay yidhaahdeen wax kale maysan dhin qabtay yidhaahdeen xataa waraysta ma odhan quraysh maxaad malaynaysa oo ciilkaad ogayd qabta abudarri markuu ka sheekaynaya wuxuu yidhi darabuunii liamuuta waxa ay igu dhufteen waxay ugu talagaleen inaan u dhinto iyagoo garaacaya baa abubakar u yimid intuu qabtay buu ka tuuray maalin labaad buu ku soo laabtay meeshii buu kaga dhawaaqay haddana qabtaa la yidhi sidii oo kalea loo galay waa laga qabtay markii dambe uu iska aamusay dhaawicii gaadhay wuxuu leeyahay bil baan sii joogay maka waxaan quudanaya buu leeyahay zamzamkaan cabbayay abudarri waa ninkaas radia allahu tacaala canhu halkaasaan ku joojinaynaa wajuuziitum khayran laakiin intiisa isagii weli maynaan dhammayn wuxuu yidhi taqadama islaamuhudaan ku keenay wa ta'akharat hijratuhu hijradiisuna way soo dib dhacday falam yashhad badran badar muusan soo xaadinoo dib buu ka yimid wa manaaqibuhu kaiiratun jidda maata sana 32 sanadkii 32 markay hijradu ahayd fii khilaafati cuhmaan khilaafadiisii sanadkii 32 hijriyada 3 sanaa ka dhiman khilaafadii cuhmaan ayuu dhintay radia allahu tacaala canhu